Xero Jaalle deegaan ka tirsan degmada Galdogob ee gobolka Mudug 40 kiiloomitir ayay gaalkacyo dhinaca galbeed ka xigtaa. Warbixintan waxaan ku iftiiminayaa taariikh hore, mid dhexe iyo xaalka hadda ee deegaanka. Inta ugu badanna waxa iga waramaya Abwaan Jaamac Faarax Gaaciye oo ay ku duugan tahay qisooyin iyo dhacdooyin badan oo ku saabsan Xero Jaalle. Xero Jaalle waxaa la aasaasay 1971 aasaaskii magaaladan magacii loo bixiyey wuxuu ahaa Xero Gaalaad. Magacaas oo noqday mid dad badani oo madaxdii dalku ku jirtay u cuntami waayay. waxaa deganaan jiray meeshaan Maraykan baa deganaan jiray wax ka baara wadooyin sameeyay laakiin waxaa loo bixiyay markii ay ka guureen Xero Gaalaad meeshii gaaladu deganaan jiray. markii dambe magacaas waxa magaalada ka bedelay madaxweynihii dowladda militariga Jaalle Maxamed Siyaad Barre oo gobolka Mudug socdaal ku yimid isagoona u bixiyay magaca ilaa iyo hadda loo yaqaan ee Xero Jaalle. Shaniir Raxma Allah siiyo Maxamed Siyaad Barre wuxuu u bixiyay 72 eeriyadu marahayay wafti buu ahaa odayaashii iyo markay uga warbixiyeen iyo deegaanka ay samaysteen magaceed buu yiri Xero Gaalaad baa la yiraahdaa. dadka degan gaala ma ahana gaaladii hore miyaa loogu magac bixiyay haaba yiraahdeen waa Xero Jaalle yiri ka bilaabata maanta qofkii laga maqlo Xero Gaalaadna waa xarig buu yiri wuxuu uga jeeday Soomaali wuxuu yiri qabiil magac reer hebel lama oran karo dadka qabyaaladii waa la xabaalay markii qabyaaladii la xabaalay wuxuu uga waday ciyaalka yarka markaan ahayn wax la dhuumasho baan ciyaari jiray waxaan isku ahay intaan waa isku jaal intaana waa isku jaal jaalle waa walaalihii weey. Xero Jaalle waxay fariisin u noqotay guutooyin ka mid ah ciidamadii Soomaaliya ee dagaalka ahliga la galay Itoobiya. markii dalku burburayna waxay dadkeedu bartanka u galeen dagaalo qabaa'il oo aysan iyagu ka mid ahayn, waxaana hadba dhinac u dhaafi jiray maleeshiyaad beeleedyo hubaysan oo doonayay in dhinacba kan kale dhibaato u geysto. Habashidu markay Galdogob timid oo ay qabsatay oo ay Galdogob soo qabsatay halkaana madaafiicdu oo lijiday Soomaaliya ciidankuna halku ku jiray ayaguna halkaas ka soo garaaci jiray wax alla wixii waab laga dhisay iyo wixii xariish laga dhisay madaafiicdii ba qaatay dagaal badan baa ka dhacay qolo walba meeshan waxay u ahayd ubada biyaha lagu cabo kuwii xagga ka yimaada daaroodku biyaha ka cabi jireen xagga duulaan markay u yihiin kuwaan xagga ka jira markay yimaadaan oo hawiye ayaguna biyaha ka cabi jireen markay fal soo galaan biyaha ka sii cabi jireen markay soo socdaana way ka cabaan. Xero Jaalle waayo badan iyo sannado adag kadib hadda waa tan xilli habeyna sidaan u iftiimaysa. baalayaashan cadceedda ku shaqeeya Puntland ayaa dhowaan ka hirgelisay. waxqabadka kale ee ay Puntland ka samaysay Xero Jaalle waa ceelbiyoodkan soolarkii lagu shidi jiray ka xumaaday iyo iskuul hoose dhexe. intii madaxweyne soo marisay Puntland nin wax u qabta cali gaas baa la arkay motorkaas uu qoday ceelka riiga isaga u qoday iskuul la waa sameeyay inta kale nin ku hambaasay male dadkan deganu marka aad bay u xaqiray xal federaal wax kama helaan xag Puntland wax kama helaan
waxay ku dhaqan yihiin waa ridooda iyo ratigooda